Sheekh Muuse Cadde Allaha u raxmaday 1947 ayuu ku dhashay baadiyaha tuulada Maxaasaciid oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Isaga oo jira 10 sano ayuu xifdiyey Qur'aanka Kariimka. Inuu da'daas ku xifdiyo kalaamka Alle waxa uu suura geliyay Allah iyo inuu sheekhu ahaa kutaab dadaal badan kana firfircoon dhigiisa. 11 sano haddii uu gaaray sheekhu waxa uu u xereystay sheekhiisa oo lagu magacaabi jiray Sheekh Muxudiin Raage Xaayow oo u akhriyay kutubta yaryarka sida naxwaha, sarfiga ilaa uu ka gaaro kuwa waaweynka sida minhaajka iyo tafsiirka. Kadib Sheekh Muuse Cadde Allah u naxariistay haddana waxa uu laazimay jalsada sheekhiisa ahaana caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed Sheekh Xuseen Cadde. Eebbaha u naxariistay sanado badan oo uu sheekhu ahaa xiruu ku dadaala barashada diinta Islaamka qaybaheeda kuma ekaysan intaas oo waxa uu ku biiray macaahid xilligaasi ay gacanta ku hayeen Masaari isaga oo uga biiray dugsiga dhexe. Allah u naxariistay sheekha ayaa noqday ardayga ugu horeeya ee tartan iyo imtixaano laga qaaday ardaydii xilligaasi macaahidaas wax ku baran jirtay taasoo u suura gelisay inuu helo minxo waxbarasho oo dalka dibaddiisa ah inkastoo ay u suura geli weysay inuu baxo. Mar kale Sheekh Muuse Cadde Rabbi ha u naxariistay waxa uu galay xerada ciidannimo gaar ahaan loogu tartamayay sargaalnimo oo xilligaasi qaali ahayd. Dhammaan imtixaanadii loo galay ayuu ku baramoosay waana caddaynta inuu sheekhu ahaa aqoon-yahan ku firfircoon dhinac kasta isaga oo ka soo baxay jaamacaddii Lafoole. Ugu dambeyntii dadaallo badan kadib 1974 sheekhu waxa uu noqday macallin ololihii horumarinta farta Soomaaliga ayaana mas'uul looga dhigay dhammaan dhaqaatiirtii, macallimiintii iyo ardaydii. Sidoo kale waxa uu ka soo qabtay dowladdii Maxamed Siyaad Barre xilal kala duwan sida inuu noqday gudoomiye waxbarasho degmo iyo xilal kale. 1991 haddii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya Sheekh Muuse Cadde Rabbi ha u naxariistay waxa uu ku laabtay daraasaynta kutubada cilmiga ilaa xalqadiisa ay jeclaadaan xirta halkaasna uu uga bilowday safar dheer oo in ka badan 30 sano uu ku faafinayay diinta Islaamka. Waxa uu noqday caalim aan xaqa ka gamban runta u sheega dadka diinta Islaamka si xun ugu fasira dadka ilaa cadowtinimo xoogan ay u qaadeen culays badanna ay saareen sheekha taasoo markii dambe keentay inuu dalka iskaga tago halkaas ayuuna ka bilaabay faafinta iyo daraasaynta diinta Islaamka. Sheekhu waxa uu ku suntanaa Islaam jaceyl, dad jaceyl iyo dal jaceyl. Xalay 17 Diseembar ayuu Sheekh Muuse Cadde ku geeriyooday dalka Holland. Allah u naxariistay. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Walaal fariintan gaarsii ummadda muslimiinta ah magacaygu waa Sayid Cumar Axmed Maxamed.